warkaas ka kooban wuxuu yahay Ethiopia aragtida aan ka qabo wuxuu yahay Ethiopia iyada jiritaankeedu liita oo Ethiopia taariikhda la garanayo dambe ee cusub waxay ka mid tahay wadanada minority group ku taliya Ethiopia haday diin noqoto haday dad noqoto haday qoomiyad noqoto dawladda mililikti xayle iyo tan mangiste iyo tan meles intuba waa minority group diinahana waa minority dadahana waa minority kuwa ka taliya wadanka Ethiopia la yiraahdo dadkiisii ugu badnaa diin iyo dadba waa inta la gumaystay bay kamid yihiin sadaradeed minority dawlad wadankeedii ku ah umalayn maayo inay Soomaaliya si gumaysan karayso kale iyada wadankeedii minority ku ah inay hadana Soomaaliya si gumaysata waa wax adag laakiin Soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana duligan way ku jiraysaa Soomaalidu caqiidadan qabiilkee diin iyo wadan iyo dhaqan iyo dadnimada ka xoog badan intay jirto in reer loo gaaloobo gaalkii Ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay waxay Soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyay waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyay waxa imika axmaaro wada reer baa lagu wada waxa la idan caqiida taala ah reernimadu qofka Soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada dadnimada diinta caqiidada wax walba cadawga koowaad aan warkayo mujtamaca Soomaaliyeed haysta waxa weeyaan عقيدة سقلداً أي شو هيستين عقيدة وين لقى تخلصها أو يبدأ شادد نما يا إسلام نما يا الصومالي نما دقنا وين بدله هذه واحدة كلبات أنت المام يعني وحويان بني آدمكم مركز تو هدف يا شو قاركرة أنا أهداف وين يلنا ريق وحير مثلا قف مقاضة قف هن لغير مقاضة هيركو إنير دور كنا قف ما يسكر ريرتين دور كنا قف وحمد حنمدو ده يهجان كودي أنت اللي رادي ما حتى ضدك هجان كدونية وحيد إنه هنشرو هنويني إن يدتكو يشانوا وردوني دينا وحكب بدل لك فكرة جيس كي يراين إنه سيد تناوني تيلو كفكرينه عالم كبشر باما ملا بشر بانا إنه ناي إذا إنه هنكي إنه وين هذا إن الدنيا ده وحكب بدل ليرة كفكرناه طبعا كان مدمدو جيسك جوجا وقيبينتooda waxba tarimayso dad xal leh aan noqono ثالثا waxaan leeyahay diinteena aan dib ugu noqono oo islaamnimadeena qaadano رابعا waxaan leeyahay dadkani intay midoobi karaan ha midoobaan oo hal isku dayo war hadii waxaynu ku kala qaybsanay jira waxaynu wadaagnaa jiro oo ka badan waxaynu wadaagno oo badan baa jira inahaasi waxaan leeyahay hadii dadku ay ka fakaraan oo si ballaadan uga fakaraan wax badan baa la qaban karaa laakiin inta fikradu ku kooban tahay reer hebel dhulka ma geliye hadda reer hebelkan dhulka wax gelinaya isagu waxba ma helo waa inuu ka kala dhinto waxaan uu ku faraxsay hadii xataa reerku wax noqon lahaa waxba bay noqon lahayd reerkan kalun baa dhulka gelisay adigu waxba kuma kordhin ciidu markaas dhimatay laakiin baga ma iga dhimasho badatay weeyaan inta doonina shama anaga naga dhintay dina 100 baan idinka dilay war 105 Soomaaliya ma ciida hoos marisay waxba kale ma kordhin idan waxaan aan ku koobaya wax weeyaan hadii han iyo islaamnimo iyo fishan iyo qiyaadaad aragtida leh ay soo baxaan waa wax fudud in wax la bedeli karo xaaladkan ku noolay xaalada ka xun baana dunidu soo marto wax laga bedelay wallahu a'lam